السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada Ayub Ahmed podcast. Haddaba maanta mowduuca miiska ii saaranay waa toddobada dabeecadood ee qofka noloshiisa ka dhigta mid khasaartay. Dabeecadaha aynu leenahay maalin walba waxa aynu samayno ama waxay sabab inoogu noqdaan in guusha nolosha aynu rabno ama guusha aynu aakhira rabno inaynu u sii dhowaano ama in maalin walbaba guuldarrooyinka noloshan aynu noolnahay iyo tan aakhiraba aynu shaqaysano. Qofka noloshiisa waxa qaabeeya waa dabeecad maalmeedkiisa. Ma dhici karto in beersun lagu waraabiyo ayna soo saarto miro aan waxyeello lahayn. Hadba maalintii waxa aad qabato oo isu tegay baa noloshaada meesha hadda ay joogto iyo meesha ay u socoto rajada aad ka qabto inaad gaarto hadba suuro geliya. Haddii dhaqankaagu uu yahay dhaqan wanaagsan, inta badan waxyaabaha wanaagsani dadaal dheeraad ee qofka uga baahan yihiin. Waxyaabaha xunxun ee qofka naftiisu ay rabto ama noloshiisa khariba way sahlan yihiin. Inaad fadhiga fariisato, telefishinka hor fadhido intaasoo saacadood way sahlan tahay. Intaasoo saacadood social media inaad ku jirtaa way sahlan tahay. Intaasoo saacadood inaad fadhi ku dir fadhida way sahlan tahay. Laakiin inaad wax barato iyadoo u horeyso Qur'aanka, inaad xirfado barato, inaad maalin walba naftaada la dagaalanto, waxyaabaha xunxun ee liita ee aan faa'iidada lahayn aad ka reebtaa. Kuma lihi macquul ma ahan, laakiin sida loo badan yahay way adag tahay qofku markuu naftiisa dagaal la galo in si sahlan uu uga guuleysto. Sideedana nolosha waxaad ogaataa waxaad dadaal gelisood ku khasaartaa ma jiro. Laba mid uun bayna natiijadoodu noqotaa. Ama in shaygaa sidaad rabtay uu kuu noqdo oo ah wixii markii horeba dadaalkan keenay inaad la timaado, ama in aad wax ka barato. Wadadan waxaad ogaatay hadda ma shaqaynayso. Habeenadii, maalmihii, qorshihii, saacadihii, waqtigii, lacagtii, kharashkii aad gelisay rajo lagama qabo mar kale inaad dib ugu celiso. Laakiin wada kale oo ay macquul tahay inay ku hagaagi karto ayaad isku dayeysaa. Qofku inta dadaalka nolosha uu wado, maalin ay noqotaba albaabba u furma. albaabkaasu markuu u furmo way dadka inta badankoodu markay arkaan yiraahdo qofkaas waa qof nasiib badan, qofkaas waa qof noloshu isugu aadan tahay. Markaasaad bulshada tusaale u noqotaa. Badi qofku marka uusan dadaal fara badan bixin oo nolosha in badan uusan jabin oo in badan uusan kufin oo in badan uusan guuldarro la kulmin oo in badan wajiyada qallafsan oo dhan nolosha uusan baalasheeda adag haddaadan soo akhrin, sideed rajo uga qabtaa inaad tusaale noqoto. Dadka qaar waa tusaale. Waxaa la yiraahdaa hebel waxbaan ka baranaya. Hebel noloshiisa waa inaan si fiican ugu kuurgalo bal waxa uu qabto. Hebel bal waa inaan waraysto. Dadka qaar baa sheekadoodu xiisa ku leedahay. Sababta xiisaha ay kugu leedahay maxay tahay? Waayo naftu markaad gudahaaga eegto waxay rabtaa in ay barato qofkani rafaadka uu soo maray. Kuma maadaysanaysid. Maaha in naftaadu ay ku raaxaysanayso. Laakiin naftaadu dhiirigelin bay ka helaysaa. bini aadamka tusaalaha maanta inoo ah haddaynu eegno dhammaantood nolol aad u qallafsan bay soo arkeen. Adigu marka dadaal kasta oo aad la timaadidba waxaad ku salaysaa labadaa mid uun inay noqon doonto, ama meeshan waxbaan ka soo baran ama sidaan rabay ii noqon. dabeecadda labaadna waa adoon isbedelin inaad sugaysa natiijo ka duwan tan waxqabad la'aanta ka dhalata. Sax, waxqabad la'aantu laftigeeda natiijay leedahay. waana natiijada in badan oo dadka ka mid yahay ay maanta hayaan. waa waxa keena dad badan inay la shallaayaan, waa waxa keena dad badan inay qalbiga ciriiri ka dareemaan, waa waxa keena dad badan in noloshooda dhan ay ku soo ururto ciil inuu naftiisa u qabo. waayo wuxuu qaban karay oo dib u dhigay, wuxuu qaban karay oo ka tagay, wuxuu qaban karay oo madadaalo ka aaday ayaa hor yaala. soo lagama yaabo noloshaada inaad la kulantay wiil ama gabar dakhliga soo gala, macnaha lacagta ay sameeyaan bil kasta ama sanad kasta iyo saacadaha ay shaqeeyaan ay aad u kala fog yihiin. saacada yar buu shaqeeyaa, lacag badan buu sameeyaa. isweydii marka sirta kaa maqani maxay tahay? meelahan oo kale weeye meelaha ay tahay inaad fakarto oo naftaadu aysan niyad jabin. waayo waxaa dhacda in qofkani inta uu samaynayo oo dhan aad maalin walba samayso, laakiin isagu natiijada maalin walba uu helayo inaadan arkin. haddaba tusaale kuu soo dhoweyn kara haddaan ku siiyo, qofkan aynu ka soo qaadno waa noloshiisu waxay ka kooban tahay 200 oo baal. 198 baal oo aadan akhrin baa jiro kaa qarsoon. labadii baal ee ugu dambeeyay uun baa dul taagan tahay. intan wixii ka dambeeya ee noloshiisu ay sii socoto waa laga yaabaa inaad waxyaabo badan ka baratood aragto. laakiin inta hore baa waxaa ku jirta diidmooyinkii uu la soo kulmay, guuldarrooyinkii uu la soo kulmay, habeenadii badnaayee uu qalbi jabnaa, waqtiyadii uu ciriirka iyo ciilka dareemayay, waqtiyadii naftiisu ay lahayd iska badaa waxa kan, waqtiyadii uu rajo go'a taagnaa waa kaa maqan yihiin.
intaa xataa hadda ku muuqata kuma dhiblaa adiga uunbaa moodaya. malahaasu dad badan buu sabab wuxuu ugu noqday in riyadoodu ay dunto, inay naftooda xaqiraan, inay isu arkaan wax daciifa oo dayro ah oo liita oo cid rabta dan kalihi aysan jirin. naftaada markaad meel hoose oo daciifa geyso, aragtida qof kale noloshiisu meesha ay joogta darteed, maxaad ka filaysaa noloshaada? yaad ka sugaysaa inuu kor kuu qaado? yaad ka sugaysaa inuu ku ammaano? yaad ka sugaysaa inuu wax kaa dhigo? cid kaa dhigaysa ma jirto. qof kuu soo socda oo noloshaada intuu kuu yimaado ku oranaya waxaan kuu hayaa qorshahan ku soco, sidan haddaad yeesho sidan bay nolosha kuu noqon, halkaasaad gaari. qof qariidadaa ku siinaya ma jiro. qariidadaada adaa laga rabaa inaad raadiso, way qof walbaaba mid goonidiisa u ah oo cid kale aysan qaadan karin oo ku socdaa jirta. adigu maxaad sidaadaba ku fiicantahay? maxaad qaban kartaa? maxaadanna qaban karin? shakhsiyadaadu waa mid noocee ah? dadka qaar waxaa jira xishooda oo aan xataa waxyaabo yaryar oo sahlan oo qofku uu wax ku noqon karo aan isku dayi karin, waayo biniaadamka kale ka xishoonayaan, biniaadamka kale ka cabsanayaan. taasaa sabab waxay ugu noqotaa in qofkaasu uusan waxba nolosha xaqiijin. wax walba niyadda waa ka rabaa, riyo kastaba maskaxda waa ka dhisi karaa, laakiin in uu u dhaqaaqo oo ay rumowdo way ku adagtahay. tan saddexaadna waa inaad wakhti gaara ku xirto. wakhtigaasu inuu imaanayo shaki kuma jiro, laakiin adigu inaad gaarayso lama hubo. taa shaki weyn baa ku jira. tan waxaan uga dan leeyahay, adoo maanta noloshaada rafaadi kara oo u silci kara waxa aad sannado fara badan ku raaxaysan karto, baa laga yaabaa inaad dib u dhigto. waxaan sugayaa markaan 25 sano gaar. dad badanoo waxaa jira maad iska guursatid, wax waad haysataa, waad shaqaysataa, markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay nin yahow weli dhallinyaranimadii baan ku jiraa iyo wakhtigii iska baashaalka. laakiin noloshu sideedaba waxyaabo badanoo lama filaana oo kaydka ku jira meel goolad ah oo aadan filayn. baabuurkuna xawaaraha uu ku socdo kuu saamixin inaad bareega qabato ayay marar fara badan kaaga soo baxday, wax kaaga keentaa. haddii aadan dhallinyaranimadaada maanta wakhtigan aad ugu xooga badan tahay oo caqligaagu ugu firfircoon yahay aadan ka faa'iidaysan, ma waxay kula tahay markaad 30 gaarto 40 50 inaad ka faa'iidaysan karayso? maalinba maalinta ka dambaysa adduunyadu sidan way kasii adkaanaysaa. dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan waayihii hore adduunyadu way wacnaayeen, waayihii hore adduunyadu way fududayd, wax walba waa sahlanaayeen. laakiin Soomaalidu wuxuu ku mahmahdaa habar fadhida lagdini la fudud. qof walbaba wakhtiga uu joogay noloshiisa caqabado jiray baa jira. maanta wakhtigan aad joogta caqabadaha ku haystaad la yaaban tahay, hamoodin in kuwiina ka horreeyay caqabada aysan haysan. kuwa aad u adag oo aynan u adkaysan kari lahayn oo qaarkeen dabaqyada ka boodi lahayn stress dartii baa haystay. waxa keena qofku in wax hadda uu bilaabi karo uu ku xiro asbuuca soo socda, bisha soo socota, sanadka ku xiga iyo wixii la mida. wax kale ma ahan, muhiim baysan u ahayn. haddaysan mar muhiim kuu ahayn in aad kaba fakartaba ma mudna. marba haddaad ka fakarayso wixii doonaha kugu dhaliyan, biniaadamka kalead ka aragtay, adiga naf ahaantaada ay say doontaa kugu timaadee. haddiiba shayga mar aad ka fakarayso aadna aragto in shayga aad wakhtigan hadda aad joogto adoo bilaabi kara wakhti kale ku xirayso, taa micnaheedu waa muhiim kuma ahan. haddaad si kasta u tirada xataa muhiim bay ii tahay, ficilkaagu ma tusay inuu muhiim shaygaasi ku yahay. waxaa la arkaa marka qof aad jeceshahay uu wax kaa codsado in aadan dib u dhigin, ee markaba aad jeclaysatay inaad samayso, xataa inaad dhararto waagu intuu ka baryayay hadday habeen tahay. isweydii marka naftaada intee in leeg baad jeceshahay. waa laga yaabaa inaad tirada nafteyda waan jeclahay, laakiin qofka naftiisa jeceli waxa danteedu ay ku jirto ayuu ku qasbaa. waxa danteedu ay ku jirtana dib uma dhigo, kama caajiso. sababaha uusan waxaan u qaban karin oo dhan isma soo hordhigo. ciriiri iyo culays ma dareemo. haddaad aragto adoo wahsanaya oo ciriiri dareemaya oo naftaadu ay waxaan kahanayso, dib hal meel ugu noqo. waxaad ugu noqotaa muhiimadda shaygani uu kuu leeyahay. waxaanad ogaan doontaa in muhiimaddiisu aad u yar tahay ama uusan muhiim kuuba ahaynba. bal telefoonkaaga daatadiisa ama telefoonkaaga in bateri aad u hesho hadduu marmarka qaarkood kaa dhaco see dareentaa? ma dhacdaa in aad weydo? waa laga yaabaa saacadaha yar ee aad weydina ciriiri badan baad dareemaysaa. shaki kuma jiro. telefoonkeena markaynu meel ku ilowno see dareennaabay kula tahay. muhiimadda uu leeyahay baad ka garanaysaa halkaa. ilmo yar ood xalay kuu dhashay ama aad dhashay oo kale ood cidlo uga tagtay baad dareemaysaa telefoonkaaga. ama waxaad dareemaysaa marmarka qaarkood haddaad guriga ka baxdo adoon telefoon sidan sidii inaad qaawan tahay.
dabcan dee nimanka xaasas kale meeshan kuma jiraan walwal fara badan baa taabanaya haddii telefoonka ay guriga uga tagaan waxay isleeyihin islaantii baa telefoonka baari doonta taas waa iska kaftan laakiin waxaan ka wadaa markaa telefoonkaaga ilowdood meel uga tagto ciriirka aad dareento bal in yar isoo fiirso nafahantaada guri haddii uu dab ka kaco ama daaqada ka bax ama dabaqa meel kale oo furan ka bood ama iridda meel unbaad u cararaysaa haddii muhiim shaygu uu kuu yahay nafta orod bay kugu aamintaa haddii shaygu muhiim uu kuu yahay cudurdaarada iyo ma samayn karo iyo tusaale kalen ku siiyo haddii midkeen subax walba xabad madaxa laga saari lahaa la oran lahaa 5 ilbirqsi baad haysataa inaad ku kacdo ma kula tahay midkeen in uusan kici lahayn qof kasto ina ka mid ah aroortii intaanba la soo gaarinba isagoo fadhiya loo imaan lahaa shaki kuma jiro haddii bal ka waran subax kasta saasoo kale madaxa lagaaga saari lahaa lagu oran lahaa hawshan qabo bilow ma midkeen baa jira oran lahaa ma qabanayo maya waayo naftu siday qaali u tahay baad ka garanaysaa haddii shaygaasu marka muhiim uu kuu yahay sida naftaada kugu jirtoo kale oo naftaada aad dhab u jeceshahay waxba kuguma qaadanaysa in aad bilowdo caajiska iyo wahsida iyo dib u dhigga iyo waqti gooniyaan samayn doona adoo hadda samayn kara dhammaantood meesha waa ka baxayaan tan afaraad waa diiradii muraayadeedu wasakhowday shalay inaad maanta ku eegayso tan waxaan uga dan leeyahay waa mararka qaarkood nolosha wax badan oo arkaysaa jira waxyaabaha qaarkood ee aad la soo kulantay noloshaada guuldarrada ama guur ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto in wixii shalay kaa halaabay ama shalay wixii kuu hagaagi waayey aad nolosha oo dhan cabir uga dhigto oo aad u qaadato in wax walbaaba natiijadoodu bilow ilaa dhammaad ay noqon doonto sidii tii shalay oo kale waana tan keenta dad badan inay quustaan oo waxay qaban karaan ama waxay baran karaan ama meelay tegi karaan inay uga baaqdaan cabsidaa maxaa ku beeray waayo waxay isku qeexeen shalay muraayadan aad xiran tahay maba loogu talagelin maanta inaad la soo kacdo waxay ahayd inaad taa meel iska dhigto maalintani waa maalin cusub waqtigana taagantahay waa waqti kii hore ka duwan in rajada aad qabtaa ay ka xoog badnaato way shalay haddaad wax ku guuldarraysatay inaad barina guuldarraysanaysid taasu daliil uma ahan shalay waa shalay uga soo tag maalintani waa maalin cusub qofku sidiisa marka uu isku qeexo oo waxa uu caddayn ka dhiganaya ay tahay shalay wixii uu ku guuldarraystay wuxuu iloobaa in maalintani ay ka duwan tahay maalintii tagtay waxa tagay lama soo celin karo si kastood uga dul calaacasho si kastood uga dul oydo soo lagama yaabo in maanta ninku soo xumeeyey uu jiro aad maalin walba gocanayso wuxuu kuu geystay waxba kama bedelaysa xaaladaada aqbal waa wax dhacay arrintaas waa arrin jirta waxbana lagama bedeli karo hore uga soco waa laga yaabaa inay xaas gabarad qabi jirtay ay kugu xumaatay oo meel xun arrintiinu ay gaarto si dee aad u liidata aad labadiina ku kala tagteen inay waxyeello kuu geystay shaki kuma jiro aqbal hore uga soco adduunyadu intaa kuma koobna bini aadamkuna isku mid maahan farahanna ilaahay ma simin maalin kastaana jimco maahan qiyaastan aad haysataa waa mid waafaqi karta maalmihii tegay adiga iyo qof kale wax idin dhex maray soo kala faaruqde waqtigii tagii wax laga bedeli karaa hadda ma jirto dadka badankoodu waa sababta keenta markay dib u guursadaan guurkooda dambe xataa inay xasillooni ka waayaan waayo qalbigiisii isagoon qofku bogsan oo dhiiggu weli ka tifqayo ayuu dib u guursanayaa ma kula tahay qofkaasu in uu dego oo uu qof nolol la wadaago inuu diyaar u yahay maya qofkaasu diyaar wuxuu yahay inuu la murmo oo kalsooni darradii u xagga kala yimid inuu halkan haddana qofkii ay faraha isku taagtaagaan oo qofkan dambe xataa usaa kaaga cararo oo yidhahdo qofkan waalani xagguu ka yimid horta haddaba haddaad rabto noloshaada inaad horumar samayso waa lagama maarmaan silsiladahan kugu xiran ee dib kuu jiidaya waa inaad ka faaruqdo waa inaad iska furfurto waa inaad naftaada ay aqbasho wixii dhacay way dhaceen wax tagay tigsimaad ma leh inaad dul taagnaataana waxba adiga hadda noloshaada kama bedelayso kaalmana kuma noqonayso tan shanaadna waa maskax qofulla ku xiran yihiin waxa u horeeya waa diidmo kibir qab isla weynan ma anagoo reer hebela ma adigoo sidana shanbari sheekh laguma noqdo ma tanaa wixii sheegaysa ma kaasa aniga waxay faraya haddaad aragto qof oraahahaasu ay caado u yihiin waa qof isla weyn qofku markuu isla weyn yahay iska badaa dadka kale iyo nolosha dhinacyadeeda kala duwan ee kale inuu wax ka barto naftiisa xataa waxba kama barto in uu meel ku liito ama uu wax ku xun yahay xataa naftiisa kuma qiri karo keligiisa gooni isku soo xira waa laga yaabaa inuu dhibaatada haysata iyo mushkiladda haysata uu ka dul ooyo laakiin haddana naftiisa marna ma aqbali karto inuu wax ka bedelo kibirka iyo qabka ku jira hadduu damco xataa inuu mushkiladda haysata raadiyo
intuusan ba dhegaysan mushkiladan haysata qofkii xalkeeda u waday qofkiibuba ku mashquulaya ma qofkan baa la dhagaystaa ma taasaan maqli karaa ma tan aniga wixii sheegaysa ma kaas aniga wixii sheegay horta dadku markay nolosha ka soo halowday dadka wacdiyaan waxyaabo aan isaga dani ugu jirin oo khuseenba horta ku mashquuli kabacdi wuu ka tagi hadhow bay haddana mushkiladii kusoo laba kaclaynaysa waa soo laaban qaf kombiyuutarkiibu garaaci markay mushkiladii haddana dad kala usoo baxaya kibirkii iyo qabkii iyo isla weynankii iyo qofuladii maskaxda ku xirnaa baa haddana ka hor istaagaya qofku inta maskaxdiisu ay qafilan tahay oo dadka qaar xataa waxaa jira aan fikradtiisa ka duwan aqbali karin waxay tusaysaa jahligiisu inta uu qotal la eg yahay marka jaahilnimadu ilaa xad ay gaarto waxay sabab kuugu noqotaa xataa dadka kale inay kaa fikrad duwanaadaan inaadan aqbali karin dadka qaar waxaa jira hadday arkaan qof waxyaabo khaladaada samaynaya sidii isagu inuu malaa'ig yaho weligii uusan khalad gelin ayuu xanaaqaya heer wuxuu gaarayaa qofka haddii hadda naftu ay ka dhacdo waa farxaya sidii in isagay wax ku soo kordhinayso haddaba inta qabkaa iyo isla weynankaa iyo kibirkaas uu kugu jiro diidmaduna ay tahay waxa astaanta iyo caadada maskaxdaada iyo noloshaada dhaqanka ay leedahay u noqday waxaad ogaataa waxyaabo fara badan oo noloshaada ka mid a ayaa kugu adkaanaya inaad xaqiijiso tan lixaad afaara aan ku khusayn wakhtigaaga inaad ku lumiso ama xaaladaha qaarba sabab inay kugu noqoto wax muhiim ah in aad ama ka dib dhacdo ama wakhtigiisu uu ku dhaafo oo aadan waxba ka qaban karayn sida salaadoo kale badanaa mid cayr qaata oo qurbaha degan ama gabar ha noqoto ama nin ha noqdo ragga iyo dumarku intaa siyaasadda way ku dhex jiraan maanta oo u doodayo xuquuqda dad kale laakiin cid warkiisa maqlaysa ama wax ka soo qaadaysa aysan jirin wakhtigiisa qaaliga oo ehelkiisa xaaskiisa ninka qaba caruurtiisa hooyadii walaalihii saaxiibadii rabbiga abuurtay wakhtigii uu siin lahaa siinaya meel dee waa qof mir intuu soo qaaday shamiito dhigayo sugaya geed weyn inay noqoto baxdo oo miro ka gurto mana dhacayso midda jirta xaqiiqadaas waxay tahay cid warkaaga intay soo qaado baarlamaanka ama guddigu meeshuu isugu imaanaya intay ka daarto odhanaysa bal ninkii hebel ahaa ama gabadhii heblaaye ahayd baa war ka soo baxaya bal aynu weelayno oo waxaynu ka qaban karno aynu fiirino ma jira waa maya inaad jirtid horta ma lagu ogyahay baa ka horraysa inaad jirtid adiga unbay sog laakiin cid kale inta ku taqaano unbaa ku og laakiin dad badani kaama warqaban haddii xataa social media aad leedahay accounti dad badan ay follow gareeyaan waaba la dhihi karaa qofkaa warkiisu waa laga yaabaa inuu meel gaaro laakiin xaqiiqo waxa ah dad badan oo wakhtigooda 3 4 5 6 7 8 10 saacadood maalin kasta ku bixiya social media oo uu balwad u noqday waagii hore balwadaha la yaqaano sigaarka iyo qaadka iyo tubaakada iyo baa jirtay laakiin maanta intee balwadood baa jira Snapchat TikTok waliba TikTok waa meesha ugu daran in badan dadku ay ku halaagmeenba TikTok ha noqoto ama Facebook ha noqoto ama YouTube ha noqoto intee balwadood oo maanta dad fara badani aysan ka foqi karin maanta hadda wax yar ka hor waxaan idinkala soo hadlayay telefoonka markaynu ilowna see dareennaa dadku waxa ugu badan oo telefoonka ka qabtaan muxuu yahay dad badan baa kitaabka qur'aanka ay ugu jiraa telefoonka laakiin ma akhriyaan dad badan baa muxaadara marka ay u soo baxdo notificationka ma dhageystaan ma fiiriyaan laakiin hadday soo baxdo reer hebel baa halkaa maanta lagu laayay ama lagu go'doomiyey dee waxyaabaha tusaalaan wada siinayay waxaa laga yaabaa inuu isla markaba daaro oo warkaasu hal dhibic hataa aysan dhaafin waxaanad halkaa ka garan kartaa muhiimadda noloshaada xooggeeda meesha aad saarayso haddii maanta layna weydiiyey intee ina ka mid ah oo qur'aanka tafsiirkiisa bilow ilaa dhammaad dhammaysay intay u fariisatay xalaqada maalin kastoo jirtaba soo fariistay in yaroo fara ku tirisaa layna ka helaya marka loo barbardhigay inta kale bulshada waxaa laga yaabaa qaarkeen inaynan xataa faatixada si fiican u akhrin karin laakiin waxyaabo badan oo kaloon macnana nolosheena ku soo kordhinayn danteennuna aysan ku xirnayn baa laga yaabaa wakhtigeenna inaynu siino intee waxyaabood baa ku baran kartaa xirfadda noloshaada aad leedahay baad ku kobcin kartaa ama mid cusub baad ku baran kartaa luuqad kalaad baran kartaa waxyaabo badan oo kaloo bulshada aad wax ugu qaban karto oo maanta wakhtigaa aad gelin kartaa jira laakiin badankooda waxaa ka sahlan ilan dee hadalku inuu qofku iska hadlaa uma baahna inuu jiimka tago oo murqo xoog waaweyn yeesho oo afkani waa iska hadli ilaa ciidda uu ka hoos maro oo afkaa ciid laynoo ka buuxiyo oo malaku mawdku uu ina helo haddaba noloshaada waxaad isweydiisaa waxa maalin walba ama aad ka hadasho ama aad qabataa qiime intee in leeg bay noloshaada ku soo kordhinayaan muhiimadda ay kuu leeyihiinse maxay tahay markaad goobaabintaa dhex istaagto ayaad ogaanaysaa noloshaadu macnaha ay leedahay iyo jihada ay u socoto
midda toddobaad in dembiga aad galaysaa uu kula yaraado waad xaqiraysaa maanta laakiin maalin culus baa dambaysa wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim waa laga yaabaa agtaada inaad sahlanayso laakiin ilaahay agtiisa waad ugu weyn yahay jirkani waa ammaano maskaxdani waa ammaano indhahan iyo dhagahan iyo qalbigani waa nicmo rabbi uu ku siiyey haddaad ilaahay maanta ka mahadin weydo maxaad filaysaa markaad qabriga gasho qof kastoo ina ka mida layn baynu ku jirnaa meeshaan kaga jirno oo malakumood aynu kula kulmi doonnana ma ogin daqiiqad kasta diyaar waxaan u nahay inaan adduunkan dhaafno waad og tahay inaadan adduunkan ku waaraynin taa miyaa shaka ku jira gaal iyo islaamba waxay bini aadamka adduunka ku nool isku raacsan yihiin in ay maalinay noqotaba dhiman doonaan adigu waxaa laga yaabaa inaad sugayso markaan 60 gaaro ayaan xajka aadi doonaa markaasaan qur-aanka baran doonaa markaasaan ilaahay u soo noqon doonaa yaa kuu damaanad qaaday inaad wakhtigaa gaarayso ma dhambaal baa ku yimid ku oranaya waxaad noolaan doontaa 70 sano 60 sano ma jirto beentaa nafteennu inuu ku sheekayso si fudud baynu uga qaadan karnaa una aamini karnaa waxaanad ka garanaysaa inaad aaminsan tahay dhaqamadaada iyo ficiladaada hooyo dhan oo warshadii wax soo saaraysay ah oo la rabay inay ubad wanaagsan tarbiyadayso oo waxaad arkaysaa maanta dhan hadba heesaysa soo saaraysa waxaad arkaysaa nin weyn oo traags ka dhex fadhiyo gar laho maanta dhan hees buu dhegaysanaya hadba heestii ay ka qabato ama ay marayso ee shucuurtiisa saameyn ku yeelatay ilan waa codadka shayaadiinta weeye buu hadba soo saaraya waa aabba dhan oo berri ama aabbuu noqon doona ama maantuuba yahayba tusaale noocee ah markaas waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhahdaan carruurta qurbaha halay waddamada gaaladaa kharribay laakiin xaqiiqadu waxay tahay aabbaha iyo hooyadu iyagaasi wax ka yihiin iyagiibaaba kharribana u baahan in la edbiyo la tarbiyadeeyo wax loo sheego iyagiiba u baahan in loo caqli celiyo maxaad marka ka malaysanaysaa ilmaha dhexdooda ka soo baxay inay noqonayaan weligaa maystiri laba aqal galaya bal xoogaa u yara caqli celi oo ma tiri war hebelow war heblaayoy war caawa fursad waxaad haysataa nicmooyinkii rabbi u waaweynaa adduunka uu bixin jiray mid ka mid inaad caawa hesheen ee rabbi gurigan kaga baqa oo ilaahay kaga xishooda oo rabbi mahadiya intaad rabbi caasin lahaydeen oo ma lagugu jawaabay waa habeenkaygii kadibna ilaa ragga qaarkood waxaan maqli jiray madoofaar baa damiir daranaa ragga qaar waxaa jira damiirku uu ka dhintay ninku inuusan hoggaan haynin oo wax liita uu yahay waxaad ku garanaysaa gabadha shalay bannaankaa markay maraysay asturnayd ee aadan weligeed qoorteeda arkin bad habeenkaa waxaad arki labada naas meesha iska haystaan oo xabadkeedii bannaanka soo dhigtay oo dhabarkeedii qaawan yahay oo gacanta hadday kor u taagta waxaa laga yaabaa xabadkeeda ilaahay wuxuu ku rakibay bannaanka inay qaarkood yaallaan markaas wuxuu ku leeyahy nin ragaanahay waxaa loo daaray buraanbur oo islaamaha imaano buraanbur baa laga qaadaya oo heesaa laga daaraya waxaasoo dhan waxaa laga dhigayaa nin quwad leh oo nin raga inay heshay oo rag dhaafay ah hadhowbaad berri waxaad arki kiyo darbi cidlaa fadhiyo ooyo bannaanka loo soo tuuray war maxaa kugu dhacay hebelow war nin naagti waa igu xumaatay oo naag xun baa shalay guursaday oo waan tala xumaaday oo tala xumaanahay buu ku leeyahay markaa waxba lagama qaban karo lacagtaadina waa kaa khasaartay nin walba oo guursanayo gabadha aad guursanayso waxaad ka fiirisaa in ay tahay gabadhaasu gabar rabbigeed caabudaysa waa laga yaabaa ragga qaarkiin inaad eegtaan uun keliya muuqaalka iyo quruxdeeda ood ka bacdi istiraadaan haddaad tan heshid walle janno adduun baad heshay laakiin janno ma noqonayso waxa hadda aad qoslaysaan oo dhoolotuska samaynaysaan ood boodboodaysaan hadhow bay shallayta kugu noqon markay kugu aftaagto oo maanta dha gurigiiba cadaab uu kugu noqdo maxaa rag badan bannaanka taagay guryaha ma soo galaan guryahooda rag baa markay shaqada ka soo baxaan gurigooda ma aadaan meelahaasay wareegtaan caawa dhan intay gabadhu ka seexanayso xataa hadduusan shaqo haynin bannaankaasu ku maqanya ilaa guriga laga seexanayo waayo gurigiisiba wuxuu ku noqday jaxiimo yar cadaab yar buu gurigii ku dhex noqday wuxuu dareemayaa inuu jahannamo ku dhex jiro guriga markuu yimaado dadkii shalay faraxsanaa ee kaamirada marka la jookeega afka isu gelinaya ma jirto maxaa dhacay waayo marka rabbi la caasiyo shaki ma lahan labadiinna quluubtiinaa la kala fogayn isuma soo dhowaanaysaan iyaduna inay ku caasido oo ku dhegaysato shalay baad gurigaa ku soo bilowday habeenkii u horreeya laga yaabaa inaad tiri is-astur oo waxaani ceeb weeye oo damiirkaagu xoogaa inuu markii hore diiday kadibna lagu yidhi laba mid dooro ama aniga ama waxa aan rabo inaad samayso oo sidaan rabaa ay suurto gasho ama inaad iska kaydayso oo nin kalan iscalfanaynaa ragga badankoodu meeshaasoo kale ma adkaysan karaan inaad markaa isdhigto isdhiibto wax allaaliya wuxuu rabbi nacayna habeenka aad samayso laba beriyoo raaxa lamooda uunbaad ku jiri kadibna kaba naareed baa lagu gelinayaa haddaba noloshaada inta aad nooshahay nin raga intaad iska dhigto waxaad samaysaa waxa dantaadu ay ku jirto mid aakhiraya mid adduunba
adduunku waa qayb weyn oo nolosheena ka mid ah aakhiraduna waa qayb ina sugayso oo daarul qaraar weligan kama soo noqonayno meeshaas meel dib looga soo noqonayo ma ahan hal fursad baad inta ku haysataa halkaa fursadna waa meesha aynu u soconno meeshaynu ugu shaqaysan karno haddaad inta ku dayacdo wixii aad dayacday meesha lagaala xisaabtamaya weli way ka horraysaa mad gaarin dhammaantiin intaynu podcast kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh